بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed axmed xasan caawa waxa halkan ila fadhiya koox aqoon-yahan ah oo Soomaaliyeed oo doonaya inay ka hadlaan arrimo xasaasi ah oo bariyahan ay warbaahintu si fiican u qaada dhigaysay oo ku saabsan xiriirka Kenya iyo Soomaaliya qodobada aan ka hadli doono waxa kamid noqon doona faa'iidada Kenya ay ku qabto Soomaalida iyo Soomaaliya damaca Kenya ay ka leedahay badda iyo dhulka Soomaaliyeed jiritaanka sokeeye Soomaaliyeed iyo shisheeye gacan siinaya dawladda Kenya ku gacan siinaya arrintan iyo waxa la gudboon ummadda Soomaaliyeed waxaan sidoo kale si fiican u faahfaahin doonaa qodobna u dul istaagi doonaa arrimaha ummadda Soomaaliyeed uu kaga jiro mugdigu oo ku saabsan ama ku xeeran arrintan aan caawa ka hadli doono oo ah xiriirka Soomaaliya iyo Kenya anigu haddaan ku bilaabo aragtidayda ku aadan iyo waxa aan isleeyahay ummadaada caawa halkan ugu soo bandhig Kenya dalka la yiraahdo wuxuu ku qabaa Soomaalida iyo Soomaaliyaba faa'iidooyin aad u baahsan laakiin aad moodo bariyahan dambe in aan bulshada Kenya ku nool si fiican u arag dawladooduna ay iska indhatirayso faa'iidooyinka ay ku qabaan waxa jira faa'iidooyin siyaasadeed waxa jira kuwa dhaqaale waxa jira kuwa bulsho sidoo kale waxa jira kuwa dhaqan iyo diimeed faa'iidooyinka dhaqaale waa ogtihiin ganacsatada Soomaaliyeed oo wixii ay hanti haysteen geystay Kenya burburkii Soomaaliya kadib waa ogtihiin sidoo kale gaarsiinta technology-ga iyo xirfadaha wanaagsan oo ay Soomaalidu ka dhaxashay qarniyadii ay noolayd ay gaarsiisay shacabka reer Kenya taasoo keentay inay la yimaadaan hal abuur aan horay loogu arag Afrika dalka Kenya waxaad ogtihiin in shacabka Kenya ay haysteen gumaysi weyne iyo mid yare ugu kala dameeyay siyaasadda iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha waxaad ogtihiin inay jiraan dad Hindi ah oo ku haystay xuurto ganacsiga Kenya laakiin taasi waxaan filayaa inaanay maanta ka muuqan Kenya arrintaana waxa sabab u ahaa Soomaalidu furfurnaanta iyo xirfadda ganacsiga ay la tageen dalka Kenya damaca Kenya walaalayaal waa damac cad oo aan geed loogu soo gaban waxayna si bareed ah uga hadashay uguna dhaqaaqday inay dhulka iyo badda Soomaaliyeed duhur cad ay qaadato iyada oo u maleynaysa inay Soomaalidu burburkii iyo dhibaatooyinkii ku dhacay ay la seexatay waxa jira sokeeye Soomaaliyeed oo jirkeena iyo dhaqankeena iyo diinteena haysta oo kula socda dawladda Kenya arrintan iyagoo eeganaya dana shakhsiyadeed iyo waliba kuwa lagu dhagray waxa jira sidoo kale dawladda shisheeye oo iyagu ka eeganaya danahooda oo ku taageeraya kuna gacan siinaya Kenya gardaradan ay wado waxa ummadda Soomaaliyeed la gudboon aniga aragtidayda inay marka koowaad dawladooda taageeraan dawladnimada iyo qarannimada wax lagu ceshadaa laguma ceshado waxa la yiraahdo kala qaybsani iyo shacab iyo qaylo burcadbadeed kama celin karto Soomaalida wax al-shabaabna kama celin karaan waxa wax ka celin kara oo dalkooda difaaci kara suurto gelin kara inaan taaka kamida la qaadan waa dawladnimada iyo qarannimada waxa markaa shacabka Soomaaliyeed dhamaantood u sheegaya inay arrimahan xasaasiga uga dameeyaan dawladooda kuna gacan siiyaan aad iyo aad buu mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim طبعا waxaan ka hadlaynaa caawa qadiyad Soomaaliyeed oo aan ahayn mid koox ama dad gaar ah aqoonyahankii Soomaaliyeed ee hadlay kulligood waxay ka hadlayeen waxyaalo runtii muhiim u ah dawladnimada Soomaaliya
iyo qadiyadda hadda taagan qodobada ay ka hadleen ma rabo inaan ku cesho laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo hal qodob oo runtii aan isleeyahay waa muhiim saad ogtihiin dowladda Kenya iyo Soomaaliya waa laba dowladood daris ah waa laba dowladood daris oo walaalaha xiriir badan u soo jireen ka dhaxeeyo cilaaqaad ganacsi iyo mid mataqaanaa bulsho oo muddo badan soo jiitamayo ka dhaxeeyo arrinta hadda taagan waxa weeye waa arrimo adduunka dhan ka dhaca in lagu murmo dhul ama xad mataqaanaa kheyraad lagu murmo laakiin dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya waxay dacwadooda u gudbisteen maxkamadda caalamiga adduunka halka ayaa garwadeen ka noqonaysa go'aanka kama dambaysta ee Soomaaliya iyo Kenya dabcan Kenya waxa moodaa inay sugi laadahay go'aanka ay maxkamadda caalamiga ICJ ay qaadan doonto halka waxa ka muuqata kalsooni darro badan oo ay Kenya muujinayso hadii go'aankaas ay maxkamadda caalamiga adduunka ay qaadato inay Kenya ay waxay ku socotaa ay tahay gardarro runtiina qofku markuu gardaran yahay meelo badan buu ayuu wax ku xoqdaa dabcan waxaan dareemaynaa ama kulligan wada ogsoonahay in biyaha Soomaaliyeed xuduudka badda lagu muransan yahay Soomaaliya iska leedahay laakiin bacdama muran uu yimi murankii lagu kala baxo international mataqaana standardka caalamiga ah oo ah in dawladuhu ay kala saaraan hadii dawladaha dariska ay kala saari kari waayaan loo gudbiyo maxkamadda caalamiga laakiin maxkamadda caalamiga u gudbisanay iyada ayaan ka warsugaynaa dowladda Soomaaliya runtii go'aanka ay qaadatay waa go'aan taxadar badan ka muuqdo waa go'aan aan isleeyahay hadee wax badan oo turitaana ba ku jira waayo Kenya waa wax badan oo runtii qoto dheeri baa naga dhaxaysa marka hadii aynaan isku turin oo aynaan si tartiib ah waxayna aan ku dhamaysan waxaan filayaa degdeg badan macna ma sameeyo Soomaaliduna hadba qofkii marka xilka jooga kaliya mas'uuliyad ma saarnee Soomaalidu dhan bay saaran tahay maanta biri iyo saadan batoona waxa weeye Ilaahay baa garanaya qofka wadanka maamuli doona laakiin waxa loo baahan yahay qadiyadka caamka in laga midaysan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Hayaan Baashi horta Ilaahay ma iska leh Soomaali weyn arinta maanta laga rabaa waxa weeye in ay gartaan duulaanka cad ay ku soo qaaday dawladda Kenya ay ku wada boobka badda Soomaaliyeed Kenya way inagu abaal dhacday wax badan baan u tarnay laakiin ma oga way naga faa'iideysan way isku dayayaan waliba alxamdulillah xilli fiican oo helay dawlad dhexe oo soo kabanaysa xaq dhaqaale iyo xaq siyaasadeed Kenya iyadoo ku jira isticmaar qarsoon oo ganacsi oo ay ku hayaan dadka Hindida ah waxa uu gurmadooda tagay oo dhaqaale geeyay dadka Soomaaliyeed waxayna ka heleen xirfad furfuran iyo ganacsiga ay wadaagaan iyo inay dadka kale Kenyaatiga ah isha u furaan waxaan rabaa inaan u sheego Kenyaatiga iyo inta dabada ka riixaysa Soomaali baa leh dad bay haysataa aqoon-yahan bay haysataa meel walba jooga ma xilliga la faa'iideysan lahaa waxaan rabaa oo kale wax dabada ka riixay Kenya inay damacdo badda Soomaaliya waxa weeye iyadoo deemaysan China iyadoo aragtay dawladda Soomaaliya oo ah mid xooga laga faa'iideysan karo ma aha waxaan leenahay walaalaheen ku deembaxa kheyraad kale aad haysataan ha ku deembeynina xoolaha Soomaaliyeed Ilaahayna ku afaanta haysataan waxaan rajaynayaa inaad arki doontaan shacabkiina dhexdeeda wax og yihiin inay ka faa'iideystaan Soomaalida aysan ka maarmin Soomaali baa leh Soomaaliya ha noolaato السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن بدن أنا يقول لقبا أقوياء أنتي الصوماليات هالكن سقوطني كان هاللي دفاع يشرتان كأمد الصوماليات وحنا أنو سجارة وهاللي قطب كخصائي وربعين الصومالي ده أما ضدك جي في الصومالي قالوا هذا وربعين أي كتبيان في الصومالي يقولوا قذكر لكن ضدك الصومالي ده ورياش الصومالي ده كشقيان ويشتران إذا ذكر أجانب أو الصومالي كشقيسو waxaan halkan rabaa maanta inaan message ama fariin uga soo gudbiyo saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan daafaha dunida waxaan rabaa inaan u sheego hadii dalkaaga la soo weeraro adiga lagu soo weeraray wariyaha Soomaaliga ee adduunka daafiisa jooga hadii dalkaaga la soo weeraro qaranimada la soo weeraro waxa la soo weeraray jiritaankaaga iyo noloshaada haddaba waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya ee maanta jidaahay waa dawladda kaliya ee soo martay burburkii Soomaaliya dawladda lagu kalsoonida badan yahay dadka Soomaaliyeedna waxay ka filayaan go'aamada ay qaadatay inay ahaayeen go'aamo ku haboon waqtigeedii iyo goorteedii yimi dawladda Kenya waxay doonaysaa inay carqalad abuurto oo Soomaalida ay buuq weyn iyo dhibaato ay ku furto sida ay aanu ka daawanay ama telefishinada ka aragnay iyo warbixinada ugu dambeeyay riboodyada aanu ka daawanay
tusaale yar haddaan usoo qaato waxaa ka mid ah dowladaha dariska la Kenya oo aan badaha lahayn in ay u gudbisay warbixino ah Soomaaliya waxay doonaysaa inay cunahana qabato marka dowladaha laftikooda xataa carqalad inay Soomaaliya carqaladeeyaan oo Soomaaliya dhibaato ku abuuraan oo beesha caalamka dabadeedna ay soo dhexdhexaadiso ay soo dhexgasho bay doonaysaa dowladda Kenya waxaan leeyahay warbaahinta Soomaalida ee wiilasha Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida ee wararka iyo barnaamijyada tabinaya dalkiina iyo dowladdiina adeeca la shaqeeya saxaafadana qodob waxaa dhigaya oo jira haddii dalkaaga la soo weeraro xaq bay kugu tahay inaad difaacdo dowladdaadana aad garab istaagtid ee faafinana wararka xun meesha la isku haystana waa dal Soomaaliyeed iyo deegaan Soomaaliyeed insha Allah ana waxaan filayaa in guul laga gaari doono magacaygu waa Cabdicasiis Mahdi Maxamed dhalinyarada aqoon-yahanka ee ku nool caasimadda Puntland ee Garowe waxaan rabaa inaan si kooban uga hadlo arrintan soo cusboonaatay Kenya iyo Soomaaliya sidaan la wada soconno Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo daris ah ilaahay isku location labadan dal ku abuuray iyo labadan dadba runtii weligoodna soo ahaan jiray haddana sii ahaan doona arrintan ka soo cusboonaatay waxaan rabaa inaan laba shay ka dhaho waxaan u malaynayaa waxyaabahan Kenya ka soo kordhay ah la xiriira xildhibaanadii safarka loo diiday muwaadiniintii wajeer lagu celiyay oo direct flightski ahaa iyo waxyaabahan aan ku arkayno propagandooyinkan YouTube-yada kulligoodan waxaan qabaa waxay salka ku hayaan qadiyadii muranka badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya oo arintooda oo leyd maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ runtii laba dal oo kasta oo darisa ama dawladaha dunida xurguf way dhaxmadha way isqoonsadaan waana la xaliyaa waxaana leedahay si international loo xaliyo maxkamaddu qayb ay ka tahay Soomaaliya si daris wanaag leh oo xushmad leh ayay arintaas waxay u geysay maxkamaddaas si labada dal oo dariska loo kala saaro arintan marka maadaama ay salka ku hayso arin masiiri ah oo runtii dalalku waxyaabaha masiiriga ugu waaweyn oo ay waxa weeye dhaxmara waxa kamid ah waa xuduudaha waa dhul iyo bad iyo waxyaabaha national asset-ka ah arintan waxaan isleeyahay arintaas wax salka ku haysa arintaas maadaama ay salka arintaas ku hayso waxaan rabaa inaan wax ka tilmaamo waxa la gudboon siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama hoggaanka ummadda Soomaaliyeed ama heer federaal ha ahaadeen ama heer maamul goboleed ha ahaadeen ama siyaasiyiinta iyo xisbiyada kale oo dalka ha ahaadeen maanta waa maalintii midnimada maanta waa maalintii loo midoobi lahaa difaaca qarannimada iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed arintani ma joogto muxaafid arintani ma joogto siyaasiyiinta maanta kuraasta ku fadhido talada haya ama qaran ha joogeen ama gobol ha joogeen arintani waa arin joogta dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed waa arin khusaysa ilaa iyo meesha la dhaho koona ka koona dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa in loo midoobo waxaan soo jeedinayaa in madaxda qaranku hogaamiso difaaca dalka midnimada dalka iyo dadkaba madaxda dawlad goboleedyadu inay qayb weyn ka qaataan difaacidda dalkooda shacabka Soomaaliyeed inay u istaagaaneen maanta inay u midoobaaneen in dalkooda iyo dadkooda la difaaco iyadoo loo marayo hab silmi ah iyo dariiqooyinkan xaq u lehna siyaasiyiinta mucaaradka ah ee bari kuraasta dalka u tartamaya waxay siyaasiyiin u yihiin dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed maanta badoodii la hunguriyeenay maanta suurtagal ma aha lamana aqbali karo inay ka aamusaan oo shuruuc inagana dhextaal iyo doorashooyin iyo waxyaabo internal oo dhexdeena inay maanta ka hadlaaneen iyadoo dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed la hunguriyeenay iyadoo badeennii muran ku jidho oo maxaad caalamka ugu tagteen garsoorka layna ku haysto oo nala ku challenge garaynayo oo waxa waaye wixii heshiisyadii dalka u dhaxayay labada dal loo burinayo direct flights loo leexinayo siyaasiyiinteennii iyo madaxdii qaranka nametelaysay loo bahdilayo oo loo soo celinayo diyaaradahooda maanta ka sugumayno xisbiyada gudoomiyaasha xisbiyada iyo madaxda dawlad goboleedyada iyo dhammaan siyaasiyiinta inay qadiyada ka hadlaan maanta waa in laga hadlaa arinta Soomaaliya iyo Kenya waa national issue waxaan qabaa qadiyada Kenya ay Soomaaliya ka leedahay iyo dagaalkan cusub
qof walba oo Soomaali uu og yahay waana dareen taabanaya waxaan rabaa inaan ku soo koobo hal qodob waxa waaye Soomaaliya dawlad bay leedahay caalamku aqoonsan yahay jirta sharciyadeedu u dhameystiran yihiin ayada wakiilka siyaasadda iyo qadiyada dadka Soomaaliyeed runtiina ilaa ay hadda tilaabooyinka ay qaaday sida ay uga hadashay waa tilaabooyin macquul ah ku haboon aan isleenahay waa kuwii loo baahnaa waqti loo baahnaana yimid hal arrin oo aan dadka Soomaaliyeed ku dhiirigelinaya ama aan farayo ayaan ku darayaa halkaas arrin waxa weeye dadka Soomaaliyeed waa inay fahmaan ma ahan arrintaani arrin dad gaar ah khusaysa ma ahan arrin maaragtay hoosayso oo raqiisa waa arrin aad maaragtay macnawiyan u sarreysa dadka Soomaaliyeed fahmaan loo baahan yahay waa arrin muhiim u ah dadka Soomaaliyeed waa arrin nolosheena iyo jiritaankeena iyo mustaqbalkeena taabanaysa waa dhulkii iyo qarannimadii iyo jiritaankii ummadnimo ayaa maaragtay duulaan cad lagu yahay waa inay dadka Soomaaliyeed fahmaan oo meel iska dhigaan waxa dhexdooda ku jira waxa khilaafaad yar iyo waxyaabo raqiis ah inay meel iska dhigaan ay fahmaan inay qadiyadooda u midoobaan oo difaacaan arrintan maanta waa ku celinaya waxay looga gudbi karaa in ay dadka Soomaali u midoobaan qadiyad mida ka qaataan dawladoodana ay ku taageeraan ilaa ay hadda go'aamada ay qaadatay iyo kuwa wanaagsan aan ka filayno insha Allah magacaygu waa Axmed Cawil Caato Ramadan Kariim dhammaan ummadda islaamka aad baan ugu raacsanahay ragga aqoonyahanka halkan ka soo jeediyay afkaarta wanaagsan waana wax muhiim ah masiir in laga doodo badan laga sameeyo arrimahan oo kale oo jiritaanka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed wax badan waxa yeeli doona arrinta aan rabo inaan ka hadlo waxa way doorka dhalinyarada ay ku leedahay iyo qaabka ay arrintan kala gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed waxa way arrintan inay ka dhidhiyaan oo doodo badan ka sameeyaan oo meelo badan ay ka hadlaan sababta waddanka waxa way cid maanta awoodeeda haday ciidan noqotay haday wax kala noqotaba saameynta ugu badan ee ku dhacayso waa dhalinyaro marka dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan oo ay taageeraan dawladooda Soomaaliya iyo go'aamada fiican ay qaadatay qodobka labaad aan ku darsanayo waxa waaye qaadka maadaama ay faa'iido badan xagga qaadka ay nagu qabto Kenya in qaadka la baangareeyo amba la joojiyada si ay u dareemaan in ay faa'iido nagu qabaan haddii arrimahaas oo kale la sameeyo oo ficilada noocaas ah la qaado oo qaadka la joojiyo dhaqaale burbur xun baa ku imaanaya Kenya waxayna dareemaysaa saameynta dhaqaale ay ku leedahay arrimaha Soomaaliya arrintan waa qadiyad caam ah waa dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed waxa lagu murmaayo cid walbana waa og tahay laakiin damac waa iska jiray adduunku markii xoogaa dacaf laga dareemo lagu soo damaco oo lagu soo aado waa macquul jira marka insha Allah waxaan rajaynayaa qof walba oo Soomaali muwaadin Soomaaliyeed inuu arrintan ka dhiidhiyo oo ka qayb qaato sidii arrintan looga hortagi lahaa waxaan bogaadinayaa kulankan qiimaha badan ee caawa ay isugu yimaadeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoon-yahaniinta ah kuwaas oo ka dhiidhiyay dhibaatada ay Kenya ku hayso ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed taas oo ah ay tahay arrintoodu daandaansi aan loo meeldayin oo ay ku soo xadgudbayso baddooda sharaftooda iyo wadaniyadda iyo dalka iyo sharafta intaba waxay mas'uul ka ah oo inuu difaacdo laga rabaa qof kasta oo Soomaaliya waxa waajib ah qof kasta oo Soomaaliya inuusan qof ku hadlayn uu ka dhiidhiyo wuxuu yiri saci cadaa maalinta la cunay baa ana la cunay yiri saciyash dhowrki saaco waxa weey maalinba mid la cuni jiray marka waxa loo baahan yahay hadii baddaas waxa weey maanta la qaato bari waxa weey dhulka la qaadanaya maalinta dambe wax kala la qaadanaya marka insha Allah ibnullah kariim waxa loo baahan yahay in aragti fog laga yeesho Kenya waxa weeyaan waxaan leenahay dawladda Kenya oo shacabkiina u tura shacabkiina dawladda iyo mujtamaca Soomaaliyeed waxay ku qabaan dana badan oo dhaqaale tala bixintaas Kenya aanu siinayna
shacabka kenyana waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed cadow idiinma arkaan yaan cadow laydinkaga dhigin waa walaalihiin dhaqaalo badan bay dalkiina soo geliyaan hadday tahay maalgashi hadday tahay waxa weeyaan qaadkiinni oo aad beerihiin intaa ka soo goysaan noo soo iibgeysaan intaasoo faa'iidaa idinkoo nagu qaba in waxa weeyaan fursadda qaaliga ah dowladdiinu si yaroo fudud idinka goyso tuubadaas aad iska nuugaysaan waa ayaan daro bulshada soomaaliyeed iyo bulshada kenya mujtamacu arrintaas aragti fog ha u lahaadaan insha allahu bismillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan ku dhammaato waana mahadsantihiin sidoo kale su-aasha labaad ee isweydiinta mudan oo ah yaa faa'iido qaba labada wadan oo midba midka kale ku qaba annaga waxaan qabnaa in dalka kenya ay faa'iido ku qabto soomaaliya sababo dhowr ah dartood oo ay ka mid tahay runtii soomaali fara badan oo ganacsato ah ayaa maal gashtay dalka kenya burburkii soomaaliya kadib 1991 oo dhaqaalahooda iyo hantidooda ugu badnayd ee magaalada nairobi ee dalka kenya ay taallaa arrintaas oo runtii kor u qaaday dhaqaalaha dalka kenya waa arrin kenya si gaara uga faa'iiday ganacsiga iyo hantida ummadda soomaaliyeed arrinta labaad oo la dhihi karo kenya faa'iido ayadaa ku qabta soomaaliya kenya ciidamadeeda waxay ka mid yihiin ciidamada amisom oo nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya ayadana runtii dhaqaalo badan baa meeshaas uga soo gala dalka kenya faa'iido runtii aad u fiicanna way ku qabtaa dhanka ganacsiga labada dal kenya waa dalka si toosa noogu soo dhoofiya qaadka oo runtii aan kaga bedelano lacag hard currency ah oo runtii dhaqaale aad u fara badan uu ka soo galo aan xataa aysan jirin laba badeecooyin la isku bedelanaya ee si toosa lacag cadaan ay nooga qaataan arrintaasi waa faa'iido aad u weyn dalka kenyana ay faa'iido ay ku qabto soomaaliya faa'iidooyinka ugu waaweyn ayay ka mid tahay waxaa kaloo ugu muhiimsan oo dadku hadda aad ugu baraarugsan yihiin in dhammaan saaxiibada iyo beesha caalamka iyo hay-adaha UN-ka ee soomaaliya xafiisyadooda ay ku wada yaalaan magaalada nairobi taas oo kharashaadkooda ugu badan ay ku isticmaalaan dalka kenya magaalada nairobi oo runtiina halkaas uu dhaqaalo badan dalka kenya uga soo xeroodo marka dhinacyadaas oo dhan marka la fiiriyo waxaad la dareemi karaa ama qof kasta uu arki karaa in kenya ay faa'iido badan ku qabto markii loo fiiriyo soomaaliya dalka soomaaliya runtii faa'iido aad u fara badan bay ku qabtaa waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gunaanado dhowr qodob qadiyadan hadda taagan sidii runtii aqoonyahankii iga horreeyayba ay sheegeen qadiyadan uma baahna in cid gaar ah ay difaacato waxaa lasoo weeraraya waa dalkii iyo biyihii soomaaliya oo u baahan runtii in loo midoobo hal meelna laga wada istaago dhammaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba xisbiyada mucaaradka ah ee dowladda federaalka ee soomaaliya intuba waxaa la rabaa inay hal meel uga soo wada jeestaan arrintaas waa arrinta ugu muhiimsan aan rabno inaan maanta aan soo jeedino aan kusoo gabagabayno waxaan kaloo aan jeclaan lahaa inaan u sheego runtii ganacsatada soomaaliyeed ee maalgashtay dalka kenya magaalada nairobi sidaan ka war hayno saxaafadda inay isla dhex marayeen dad kenyaan ah oo weliba looyaro u badan oo shacabka kenya kicinaya oo weliba ku goodinaya in hantida ummadda soomaaliyeed ee taallo magaalada nairobi in mataqaanaa khalkhal la gelin karo ama la dhici karo waxaan ummadda soomaaliyeed ee meeshaas maal gashtay ee hantidooda taallo aan u soo jeedinayaa inay hantidooda ay dhammaystirtaan shuruucda legal documentationkooda inay si joogto si buuxda u dhammaystirtaan maadaama adduunka uu ka dhacaa khilaafaadka labada wadan way dhici kartaa laakiin waxaa la rabaa qofku bari ka maal hantidiisii luntay sida u soo ceshto inay si sharci ah uga dhunto hadhowna wadda saxa uu ku heli karo ay u soo laabato inaas ayaan kusoo gabagabaynaya waxa weeye maxamed maxmuud xasan runtii waxaan caawa halkaan ugu nimaadnay inaan aragtideeda ku cabirno arinta Soomaaliya iyo Kenya oo waayihii u dambeeyay soo cusboonaaday waxyaabo caawa halkaan rabo in looga hadlo ay ka mid tahay maxay tahay faa'iidada dalka Kenya ay ku qabto dalka Soomaaliya runtii faa'iido badan bay ku qabtaa Kenya dalka Soomaaliya oo ay ka mid tahay arrimaha ganacsiga oo runtii ganacsi badan oo dalka Soomaaliya soo gaara ay dalka Kenya ay ku qabaan sida qaadka oo kale oo ay malaayiin dollar ay ku qaataan ayadoo dowladda Soomaaliya ay canshuur badan aysan ka qaadin faa'iidooyinka aan isleeyahay dowladda Kenya waxay ka heshaa ummadda Soomaaliyeed waxa ka mid ah in hay'adaha caalamiga internationalka oo Soomaaliya ku taxalluqa inay degan yihiin dalka Kenya
taasoo ay ka qaadaan canshuur badan ay ka helaan shaqaalaysiin badan ay ka helaan mashaariic badan oo ummadda Soomaaliyeed ay lahayd faa'iidooyin kale oo aan isleeyahay waxay ka helaan dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah in dhul Soomaaliyeed oo gaar ahaan jubbooyinka oo kale oo laga dhoofiyo dhuxusha oo kale ay ka qaataan percentage dhaqaalaha halka laga helo waxyaabahaas oo dhan waxa weeye faa'iidada ay dalka Kenya ay ku qabaan ummadda Soomaaliyeed runtii faa'iidooyinkaas oo isbiirsaday oo dalka Kenya ay qaadatay waxaa ku xigay damacyo badan oo ay dadka Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed ay ku handadayso waxaa hadda taagan tan badda Soomaaliya ay rabto inay qaadato oo hadda maxkamadda caalamiga hor taalo ayagoo diidan in maxkamadda caalamiga go'aamadeeda ay maaragtay ka hortagto oo ay wada hadal arintaasi ay magaranaysaa ay ku dhamayso arrimaha kale oo aan isleeyahay arrimaha waxa sahlan waxa weeye dad shisheeye ah oo Soomaaliya inay dawlad yeelato diidan in arrimahan oo dhan ay maaragtay gadaal ka riixayaan arrimahan oo dhan markay yimaadaan waxa dadka Soomaaliyeed la gudboon inay midnimadooda ka shaqeeyaan inay dawladooda taageeraan inay dhexdooda arrimahooda dhexe ay si midnimo ah ay uga soo wada jeestaan si loo helo dawladnimo Soomaaliyeed oo go'aan masiiri ah ka qaadata arrimaha hadda taagan. Assalaamu calaykum.